waayahay kusoo dhawaada showgeena maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno mise xoogaa ka taataabano arrinta covid-19 ama loo yaqaano cudurka coronavirus. horta coronavirus dhibaato badan adduunka saameyn waa ku sameeyey. haddee timaado wadamaha Afrika waxaa jiro warar kala duwan oo iskhilaafayo oo haddii ahaato nimankan science-ka waxay soo bandhigeen iyo waxyaabaha indhaheena arki karaan haddaanu nahnay shacab oo indhahooda u isticmaalo inay wax ku qiyaasaan. coronavirus hadda koley scientiska Europe joogo iyo Mareykan waxay ku leeyihiin haddii qoraxda mar ay gaarto 25 degrees coronaviruska bahalka waa dhimanaa, kuleelkana uma dulqaadan karo mana noolaa karo kuleelka. marka hadda waxaa soo baxday war la leeyahay maalin dhexdaas adiga 2 bil ka hor Tanzania ayaa tijaabo ku sameysay qalabada oo lagu tijaabiyo coronaviruska. waxay ku tijaabisay ariga, neefka ariga iyo digaaga ama doorada waxa loo yaqaano iyo wixii kale xoolaha ah malaayga hadii ahaato. markay ku tijaabiyeen geedka cudurka baarayo wuxuu ilaahay amarkiisa kulli oo lagu tijaabiyey ariga, neefka iyo malaayga iyo wixii dhan geedka wuxuu soo saaray inay kulli wada positive yihiin. marka madaxweynaha Tanzania waa soo qudbeeyay wuxuu yiri anaga coronaviruskan geedkan lagu soo diray waxa ku tijaabinay ariga iyo neefka iyo malaayga iyo kalluunka in aragno inuu saxsan yahay, kulligoodana wuxuu soo wada saaray inay positive yihiin. marka waxa qaldan waxa uu yiri mashiinka oo haddii mar lagu tijaabiyo mar qof walba hadii lagu tijaabiyo wuxuu soo saaraa positive either way, yani waa positive loo soo saaraa geedka hadii lagu tijaabiyo. marka dad kale aad jiro Europe joogo waxay leeyihiin geedka coronaviruska calaamada oo hirgabka ayuu indication ka dhigaa inay tahay covid-19 cudurka, laakiin asi ma yaqaan inuu kala saaro si loo kala saaro haddii cudur ay tahay oo covid-19 ama inuu yahay hirgab oo gooni ah. kaliya wuxuu soo saaraa in meeshan uu yaalo cudur oo adiga qanla ama wax rabta ahaato hirgabka lagu yaqaan. marka waa conflicting stories, waa laba sheeko oo istaabanayna oo isku dhacayo oo hadiiba mar ay isku dhacaanbo shaki soo dhexgelinayo ummadda. marka arrintan yaraaro inaa xoogaa Tanzania dowladda la leeyahay Tanzania waxay cover up ku sameysay ama ay dabooshay saameynta oo cudurka oo ku yeeshaday, laakiin xarabna inaan xoogaa yar si fiirino ama asii falanqeyno warkaan Al Jazeera kasoo tabisay Tanzania. waayana dhageysta waa af Ingiriis xataa. The beaches in Dar es Salaam are getting busy again. Tanzania didn't have strict lockdown measures like some of its neighbours, and now it's lifting them. President John Magufuli encouraged people to gather and pray in churches and mosques to fight the coronavirus. Crowds came out for the Eid al-Fitr celebration on Sunday. hadda waa ujeediin dadkan waa isku wada jiraan haddii cudurka oo meeshan alxamdulillah ma joogay hadduu joogi lahay Afrika 15 bir gudaheed dadka dhan xaalad in hospital wada jiifaan ama dad wada dhiman oo dhimashada qarka u taagan ama in ay yihiin tacbaan oo adiga cudurka oo saameyn xun ku yeeshana. laakiin hadda waxa ugu nahan dadka badankooda qiyaas kulligood waa wada nool yihiin, noloshooda wataan 15 birin maalinta Eid waa soo gudubta hadda hal bil maruusa. dadkana dad uma eko oo hadda dii lagu qiyaaso dad wada nool waay haddii waxyaabo kale ku dhicin oo cudurka saameyn kuma yeeshan. yani waxa waaye Afrika ilaahay ilaahay waa inuu lagu mahad celiyo. qoraxda waxyaabo badan ayay leedahay faa'iido badan, vitaminka C, vitamin D, vitamin A, B, all vitamin dan waa qoraxda u fiican, caloosha qoraxda u fiican, jirka qoraxda u fiican. qoraxda waa energy gooni oo daabo ilaahay oo awood oo banaantigiis oo uu siiyay tahay. marka aan waxaa la yaabanahay Afrika mashruuc ka dhigtay kulay covid-19 lacag badan ku bacday
marka dowladaha Africa waxay u arkeen fursad inay tahay lacag lagu qaadi karo haddii lagu qiyaaso saas waa wax dhacay marka hadalkeena Tanzania ka dhacay COVID-19 ayaa sii wadeena nala sii dhageysta si fiican nala dhageysta waana falqeyn doonaa waana soo gali doonaa waaya Corona ipo na tuna Corona still exists and we need to protect ourselves, washing our hands with soap and wearing masks, although I haven't worn a mask now, but Corona exists. The government hasn't released much data for the last month. It says the numbers of new cases are going down, but the opposition says the government can't be trusted. Activists have shared videos like this one on social media showing burials at night. They say the government's hiding coronavirus deaths. The Ministry of Health has since said the night burials should stop. We don't trust the government figures. Tanzanians live as if COVID-19 pandemic. dadkan waa xisbiga mucaaradka kulay waxay ogyihiin meesha inay lacag bilaayin dollar ee taalo oo lagu qaari karo oo ay hay'adaha caafimaadka WHO oo kale bixinayso ayay rabaa inay lacag helaan si ayagana u heli lahaayeen funding oo doorashada ay u qayb galaan marka waa iska fahmi karnaa sababta xisbiga mucaaradka ee u leeyihiin coronavirus dowlad beenay ka sheegaysa Tanzania inkasta dadka dhiman lahaayeen meel walba laga arki lahaay Tanzanianka arki lahaayeen makaali lahaayeen yani waa waxyaabaha la qari karin marka hadii la leeyahay waa lacag ku rabnaa waa gooni laakiin in cudur oo jirin lusku oo yiraahdo waa jira waa waxyaabaha oo laga fiican yahay oo runtii xumaan oo ka daran keeni karto ilaahay mana tusee Soomaaliya waa inay tusaale weyn u qaadato arrimaha Tanzania ka dhacayo Soomaaliya waxa waaye maalmo dad dhimata looya marka akhrino wararka iyo waxaas iyo kale laakiin hadii dadkeena aan telefoonada Muqdisho joogo alla halano seedano see wax u jiraan kulligeena nabadgelyo meesha ka jirto wax wada lagu dhibto ma jirto diriska waa iswareysanayaa waa iska warqabaan marka waxa la rabaa hadii lacag wax lagu qaadana waa gooni ma fahamta laakiin yoo noqonin wax dhibaato birito umada u keeni karo marka xisbiga mucaaradka hadalkiisa sii wareena oo Tanzania oo Mr Zito Kabwe is not here. So the government response was very, very disappointing, very underwhelming, and we are so much worried that the lives of Tanzanians will be lost. This is one of the main hospitals for COVID-19 patients in Dar es Salaam. Nobody's allowed to film any of them. The government denies reports that hospitals are overwhelmed with cases. Activists have been arrested for challenging the government's account. Some prevention measures are in place, but for the large part, it's business as usual. The US Embassy has said evidence suggests the pandemic is growing exponentially in the city. President Magufuli has consistently played it down. If you lock someone up in a house, according to the literature we have read, the day you let him out, his immunity would have reduced by 30%. So allowing continued interaction help us build immunity, and this shall help us fight diseases. cudurka waa markaa qafta 15 biri meel ku xirtid cudurka 100% waa dega inta ka dhiman wuxuu yiri waa inay dadka dhaxgalaan ay la sheekaystaan soo caafimaadkooda kor oo soo kordho yani dadka inay dhaxgashid la hadashid la sheekaysid waa caafimaad ku jiro banaandir jirkiisa doo isku yimaado waa caafimaad ayuu keeni karaa marka wuxuu ku dhahayaa madaxweynaha Tanzania hadda uu arkay meel guri isku xiro wax saameyn ma yeelanayso xataa waxa dhibaato badan xataa si keeni karta waali iyo in personality disorder si keento waa suurtagal dadka dii meel kale oo isku xiraan oo maalmo dhan bani'aadam ka meeqan yihiin maskaxda uma fiicno marka wuxuu leeyahay dadka hala dhaxgalo laakiin hala taxadaro yani waa arin aad oo la rabo in madaxdeena Soomaaliya joogto ka warqaataan ama tusaale ugu qaataan madaxweynaha Tanzania iyo sida uu dhaqmooyo arinta COVID-19 waay asiiwana warkeen wax yaraan wax The freedoms to pray and trade are popular among many Tanzanians.
Lockdowns have been devastating for the poor in neighbouring countries. But here, it's still not clear what the cost of those freedoms will be. Malcolm Webb, Al Jazeera. markaas waa ujeediin dadku waa isku wada jiraan ayay dadkan sanzeenaan gaalada kristaanka waa maleynaa kiniisadooda kusoo bucoyaan marka waxaa rabnaa anaga haddaanu nahnay shacabka Soomaaliyeed ama Soomaali waa in maskaxda la shaqeeyo horta taxadar waa fiican tahay laakiin wax walba iska samee ilbaxnimo maahan xal raa in la qiyaaso dadkii Soomaaliyeed meelaha joogaan deegaanada badan iyo tuulooyinka iyo beledka dadka waxay ku leeyihiin coronavirus dadka ka dhimanooda dowladda issues anaga ma naqaana mana arkoona mana ka warqabno diriskeena ma aha dadka dhimanooyihiin we don't know ku leeyihiin dadka shacabka maraxta waxay gaartay wasiirka maareey oo dhaho wixii kulli wada dhinto dhan inay wada yihiin aqoonsanaana inay tahay coronavirus marka conflicting reports waaye ilaahay coronavirus Soomaalida waa ka marsiye gaar ahaan Africa wada waa ma imaanin waana ka badbaadeen marka xal loo in Afrikaanka hadda ayaga oo wax oo publicity stunt inay sameeyaan oo ah inay gaalada Europe iyo jooga ay ku dhahaan war anaga idin daaweynayna xeradan oo xerooyin inay sameeyaan wadama Afrika ee dhaha Europe cadaanta meesha joog Caucasianka imaada Afrika daawo ku qaadanaysiin Afrika idin daaweynayso marka ururka viruska oo niga baxone Europe-kiina ku noqda marka Afrika waxaa la rabaa inay fikirto Afrika waa mustaqbalka oo qaanadaha oo mustaqbalka waaye waxa waa meel oo runtii daawooyin badan laga heli karo hawadeeda haday ahaato qoraxda laakiin Afrikaanka waa inay ayaga fahmaan qiimaha ay leeyihiin iyo dhulka Ilaahay oo siiyay waad ku mahadsantihiin aniga harintaas areewna ka taabto don't forget to like to subscribe iyo comment COVID-19 runtii Afrika wuxuu ka yahay fake news kusoo dhawaada barnaamijkeena